السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال وبرنامج waxaanu ku bilaabaynaa gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland oo Daarood oo eedeyn kulul u soo jeediyay madaxweyne Deni oo taasi u diray wasiirkii ka geeriyooday maamulka Puntland ee ahaa wasiirkii beeraha iyo dhirta iyo daaqa iyo wasiiradii cusub oo uu magacaabay Deni oo uu dhaariyay gudoomiyaha ama kusimaha gudoomiyaha maxkamadda sare taasoo uu ka maqnaa madaxweyne ku-xigeenka Deni oo sheegay in uu madaxweyne ku-xigeenka arintaasi kala tashaday kuna soo qoray warqad qoraal ah oo ka soo saaray madaxtooyada taasoo ay ka dhigan tahay inuu Deni si kululeynayo khilaafkii u dhaxeeyay isaga iyo madaxweyne ku-xigeenka oo la sheegay inayan is salaamin ayuu Deni markuu wasiirada magacaabay waxa uu yiri waxaan kala tashaday madaxweyne ku-xigeenka taasoo noqonaysa meel ka dhac labaad iyo inuu si kala fogeeyo iyadoo lagu waday wada hadal in la isugu keeno labadan mas'uul ee ugu sareeya maamulka Puntland waxaan kaloo idin haynaa daawadayaal gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland mudane Dhoobo Daarood oo ku sugan dalka Turkiga ayaa waxa uu eedeyn kulul u mariyay saxaafadda madaxweynaha talada haatan haya ee Puntland waa Mr Deni oo ku eedeeyay inuu yahay nin aan waxba u ogoleen gobolada kale Puntland marka laga reebo meesha uu isagu ka soo jeeda ayuu yiri waxa uu Dhoobo Daarood ku eedeeyay dhawaan gargaar ee dawladda federaalka u dirtay gobolada Sanaag iyo Sool ayaa waxa uu madaxweynuhu si toos ah uga hadlay ayuu yiri mar uu wareysi siinay laanta afka Soomaaliga ku baxda ee BBC waxa uu yiri dawladda federaalka waxa ay jibinaysaa nidaamkii iyo xiriirka ka dhaxeeyay iyada Puntland nagalama ay tashan ayuu yiri meelaha ay waxgeysay Dhoobo Daarood ayaa waxa uu soo qaatay dhawaan deeqda gargaarka ahaa ee lagu caawinayay dadka gobolka ku dhaqan Karkaar taasoo ay ku dhacday fatahaad aad u daran dawladda federaalka u gudbisay lacag gaaraysa 1 milyan oo dollar Dhoobo Daarood ayaa waxa uu yiri ma uuna soo hadal qaadin gargaarka ay dawladda federaalka toos u geysay ayuu yiri magaalada Qardho oo ah halka uu ka soo jeedo ayuu yiri madaxweynaha waxaase nasiib darro ah ayuu yiri madaxweynaha inuu magacaabo 3 magaalo oo ku kala yaala ayuu yiri Sool iyo Sanaag magaalooyinkaas oo kala ah ayuu yiri Baran iyo Buuhoodle iyo waliba degmada ku taala ayuu yiri gobolka Mudug ee Galdogob madaxweynaha waxa uu u muuqdaa ayuu yiri mid aan u ogoleyn ummadda kale wax isaga mooyaane halka uu ka soo jeedo oo qura waxaana oran lahaa buu yiri dadka reer Sanaag iyo Sool ha tashadaan fadlan haday taa markii kuugu horeysay channelka subscribe saar gambaleelkana furo si aad noola socotid waxaan u gudbinaa wararkana dibadda ah ee dalka Liibiya ayaa waxa laga soo sheegayaa guulihii waaweynaa ee gaareen dawladda GNT loo yaqaan ee la aqoonsan yahay oo ay dhawaan dharbaaxa xun ay u geysatay iyagoo ay taageerayso dawladda Turkiga dhammaan fariisimihii ama saldhigyadii ugu awoodda badnaa ee uu lahaa Generaal Khalifa Al-Haftar oo ay burburiyeen diyaaradaha droniska ee Turkigu leeyahay iyo ciidamada infantry oo dawladda la aqoonsan yahay dalkaas Liibiya ayaa waxa la soo sheegayaa jananka gooni ugosadka xaq jirka inuu hadeer dalbanaya in uu sameeyo wada hadal uu la sameeyo dawladda la aqoonsan yahay dawladda Turkiga oo bartilmaameedsanaysay dhammaan xarumihii uu dhisay ayaa la leeyahay dawladda Ruushka oo dhistay Generaal Khalifa oo ay ku jireen meelihii laga hagayay satellite-yada laguna ogaanayay waxa diyaaradaha hawada soo galay iyo gantaalaha meelaha dheer wax ka toogta ama ka soo rida diyaaradaha oo loogu rakibay gobollo ay ka mid yihiin dalkaasi Liibiya gaar ahaan magaalada ugu weyneed ee Al-Watiya ay ku taalay xuduudda Tunisia oo ay ahayd saldhigga ugu weyn ee gacanta laga dhigay ayaa markii guushaas u gaadhay waxaad moodaa inuu yahay mid haddariisa soo dhiibay generaalka baxsadka ah waxaan kaloo idin haynaa dalka Turkiga ayaa waxa ay wasiirkiisa caafimaadka iyo madaxweynuhu shaaciyeen inay hoos u dhigeen amaba ay ka adkaadeen xanuunka COVID-19 fiditaankiisa iyadoo dawladda Turkiga ay sheegtay in aan wax kiisa soo cusub aan toddobaadkan la soo shaacin madaxweynaha Turkiga ayaa waxa uu yiri waa ay ku mahadsan yihiin shaqaalaha gargaarka ee dalka iyo dhammaan hay'adaha caafimaadka ka shaqeeya ayuu yiri iyo hay'adaha dawladaha hoose iyo dhammaan isu socodka dalka ee laanta loo yaqaan ayuu yiri traafikada waxaan kaloo idin haynaa daawadayaal dalka Spain ayaa mar labaad waxa mudaharaad lixaad ay sameynayaan dhaqaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadka kuwaas oo isu soo tuumay caasimadda dalkaasi wadooyinkeeda waaweyn iyaga oo ka cabanaya habsami u socodka ay wax u wadaan dawladda waa boolimoog tan iyo kulanti dambe